cabdiraxmaan waxaa qalbigiisa buuxiyey jacaylka baaxadda weyn uu u hayay samsam, inkastoo maalinkii u dambeeyey uu dhahay samsam anigoo aan kaa helay. samsamna waxay ugu jawaabtay aboo waxaad i siisaa waqti aan ku soo fakaro si jacaylkeenna uu halkaas ugu noqdo mid guulaysto. samsam waxay ku maqneed fikirkii. waxaan gudageli doonaa qaybtii saddexaad, qisadii aadka u xanuunka badneed ee ku dhacda walaalkeen cabdiraxmaan uu ahaa wiil lagool ah. waxaadna ka daawanayseen barta youtube-ka ee socdaal 24. samsam waa ay baxday, waa ay soo fakartay, waxayna go'aan ku soo qaadatay in ay walaalkeed ka farxiso. walaalkeed maadaama uu ahaa cabdiraxmaan wiil dhagool ah, inkastoo aysan la wadaagin waalidkeeda ama dadka saaxiibada ee dhow ay yihiin, laakiin samsam waxay go'aan ku gaartay in wiilkan qalbigiisa ee dhoorto aysan niyijibin. samsam xaafadda ayay tagtay, dhowr su'aalood ayay isweydiisay, waxayna dhahday cabdiraxmaan waa wiil dhagool ah, muddo fara badan ayaana saaxiibo tihiin, waxa uuna kaa dhigtay qofka keliya ee maanta uu ku sir qarsado dareenkiisa dhabta ah ayuuna kaaga waramay. sooma qurux badno adigane sida uu kuu aaminay in naftaada aad hadiyad ugu dhigto. samsamna waxay go'aan ku gaartay in abuurista alleh aysan ku nici karin qof bili'aadam ah. samsam sidaas ayay go'aan ku gaartay. cabdiraxmaan ayay u imaaday, hadal qosol badan ayay dhahday, waxaana uu hadalkaas u ahaa cabdiraxmaan maanta maxaad filanaysaa inaan ku dhaho? markaas ayuu dhahay samsam aniga mar walbo wax qurux badan ayaan kaa fishtaa, waxaana rajaynayaa in nolosheena cusub halkaas ay ka bilaaban doonto. cabdiraxmaan aad ayuu u farxay, markaas ayay dhahday cabdiraxmaan aniga go'aan ayaan soo gaaray, kaasoo ah nafteeda adiga inaan kuu hadiyadeeyo. jacaylkan waan kaa aqbalay, waxaana kaa rabaa inaad igu aaminto naftaada. ma hadli karo cabdiraxmaan, hadallada quruxda badan ee samsam bilaa qalbi ahaan ay u dhihi laheedne ma isfahmi karaan. sheekaduna waxay maraysaa qaab qoraal ahaaneed, taleefanka ii dhiib aan kuu qoro. cabdiraxmaanna waa uu soo qorayaa. sidaas ayuu jaceylkoodii halkaas ugu bilowday. qaybtii saddexaad ayaan halkaas ku soo afmeerayaa. waxaad ka daawanayseen barta youtube-ka ku leeyahay ee socdaal 24. nagu xirnaaw ilaa gabagabada sheekadan. sidoo kale saaxiibadeeni hore soo dhawaada, kuwayna cusub soo dhawaada. sidoo kale saaxiibada sharow dheh. waxaan rajaynayaa qisadaa inaan wax badan ka faa'iiday, annagoo gudageli doono qaybtii afraad oo aad u xiiso badan. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina.